shalay waxa dagaal xooggan ka dhacay deegaanka Tukaraq oo u dhaxeeya Garowe iyo Laascaano dagaalkaasina dagaal weyn buu ahaa oo Puntland iyo Somaliland buu dhaxmaray adigu madaxweynihii Puntland baa tahay dagaalkaas maxaad xog ka bixin kartaa mudane madaxweyne adigoo maasan dagaalkan waa socota nimankaas oo go'sootada ah oo dalka Rabeele kala gooyaan ayaa haddana dadkii Soomaaliya sheeganayeen Somaliland ku magacaabeen kala qaybiyay oo ayaa waxay ku soo qaadeen Juulaan waa la socota bishii January sanadkan 8 waxay dalka oo jooga ayaa lagu soo duuleen Tukaraq ay qabsadeen shalay ayaga warka soo qaaday طبعا dadka difaacan sharaftooda iyo karamadooda iyo cirdigooda iyo dalkooda inay difaacaan waa waajib diinawi waajib usuulinawi dalka waa la difaacaya waa la iska celinaya gabdhahay ku socdaan xaqdahay ku socdaan dhiig islaameed bay rabaan inay daadiyaan bishan barakeysa ee Ramadaan waana waxaa ugu baaqaya dadka reer Puntland markastay joogaana inay dalkooda difaacaan inay sharaftooda difaacaan in ay midnimada Soomaaliyeed la ilaaliyo wax ka yaala musabbix aan u kala qaranayo barakada Tukaraq inta u jirto hadiysa marka kullu xamaale blokoodkooda waa ku dhimanayaan waa la guuleysanaya hadda yaa jooga dagaalka Tukaraq dagaalkii Tukaraq warkada wahayo inamada aad bay u dhow yihiin dagaalka dashay ka dhacayna waa ogtihiin oo wax kuma qarsoona jab weyn oo xun ayaa ka raacay marka xoreynta dalka iyo difaaca dalkuna waa soconaya dadka reer Puntland maxaad oran lahayd arrinta la xiriira dadka reer Puntland waxa weeye waxa lagu baaqaya dadkooda inay difaacaan sharaftooda difaacaan dalkooda ilaashadaan naalba ay soo qabsanayeen waxay soo qabsan ari cadeeye waxay yimaadeen Laascaano waxay yimaadeen Gamara waxay yimaadeen Tukaraq goosh cod marka soo fariistaan yaan markaa waxaas marka waxa weeye aan iska celiyo dadkan dugaaga ah oo xushta ah oo banaystay dhiigga dadka Soomaaliyeed Islaamka banaystay aan si xoog leh isaga celiyaa waliba 10 loo dhiga Barazangaas oo isagoo Baydhabo jooga khadka telefoonka igu waramayay